Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabta. Waxaan rajeynayaa caafimaad qabtaan dhammaantiin meel walba joogtaana. Maantana cashada laba socoteen waxaa noo socda cashirkeena graphic design-ka. Maantana cashirkeena kaas uu ka duwan yahay oo waxaan qaadan doonaa qaabka loola soo dego fontiska oona loogu shubto kombiyuutarkaada. Warar badan oo aragtay anagoo fonti isticmaalayno. Marka maanta waxaan rabnaa qaabka loola soo dego inaan isla aragno iyo website-yada laga helo fontiska. Socod wanaagsan. Marka kombiyuutarka first hore waxaa kusoo xiranaysaa kombiyuutarka kusoo xiranaysaa internet markaas kombiyuutarka kusoo xirato waxaa soo galaysaa browser kugu jira any browser ay isticmaasho. Marka anaga hadda Chrome ay isticmaalaynaa. Chrome markaas u soo gasho kabacdi waxaa ku qoraysaa fontiga website badan jiro. Marka waxaa u hormarinaynaa website-ka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa Google Fonts. Google Fonts markaas aan dhahno oo search u dirno marka waa sugaynaa internet-kaadana ku xiran tahay. Markaas hadda markaan dhahno waa kana midkan u horeeya ku dhufanaysaa kuwa kale oo intuu ku soo saaro waa xayeysiin midkan u horeeya raadsanaysaa waa Google Font browser font ku qoranta kaas raadsanaysaa markuu hadda saan ku keeno marka hadda saa arkaysaa ama guduhu noo soo gelay marka qaybtan u horeyso search font ku qoranta halkaas ka raadsanaysaa font walba oo u baahan tahay halkaas ku qoranaysaa. Hadda anaga tusaale ahaan Bobines raadinayna waatana saa arkaysaa oo fontiga uu isticmaalka badanay intan kalena loo isla arki doona labadaba. Hadda fonti Bobines markaas aan dhahno iyo Bobines kaligeed maahan waa badan yihiin. Hadda haddii aan raadino hadda saa arkaysaanba Bobines aan qornay marka aragtay inaad la soo degto fontigan qaabka u qormatana waatana oo noqosa u soconaysaa marka qaabka u qormatana waa sidaan oo soo sii soconaysaa waa sii raadin kartaa. Marka saa ula soo degto waxaad taabanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay git. Markaas saa u taabato git markaas saa u taabato marka qaybtan ku qoran tahay download meeshan qaybtan download ku qoran tahay tree all halkaas ku dhufanaysaa marka download markaas saa ugu dhufto wax yar sugaysaa saa arkaysaa baad meel kugu save gareeyay shay gu leeyahay oo anaga dalka noo dhiga leenahay meeshaas save aan leenahay saa arkaysaa mid waa kana uu noo degayaa marka saa arkaysaanba hadda waa degsanay marka font walba u baahan tahay inaad font walba u baahan tahay inaad la soo degto halkan ku qoraysaa marka hadda Montserrat kala Montserrat hadaan qorno waa kana fonti laba font aan u isticmaalka badanay waa Montserrat iyo Bobines labadaas far aan isticmaalaa labada farna hadda arkayna qaabka loola soo dego marka fonti style-ka hadda meeshan haddii aad fontiga inaad sii weynaysto waa kaas hadda 52 joogtaan marka halkaan ka maamuli kartaa hadda qaabka kaan isi wixii dhanba halkaan ku ogaan kartaa ya hadda haddii isla aragno meeshan haddii aan furno waa kaas qaabkaan noqonaysaa iyadana waa sida tii oo kale hore sida tii hore camal loo soo degtay waaye meeshan ku qoranta git font ku dhufanaysaa git font markaas aan dhahno qaybtan hoose download ku dhufanaysaa iyadana saas kula soo degtaba waa kaas saa arkaysaanba iyadana halkaas kula soo degnay. Hadda Google Font ka raadinay marka fonti waa badan yihiin qaybaha laga raadiyo oo website-yada oo fontiga laga helo waa badan yihiin marka hadda labada ugu muhiimsan saddexda ugu muhiimsan isla arki doonaa. Hadda haddii aan booqano midkan kale waa 101 font saa qoraysaa saa markaan dhahno markana saan kugu soo bixi doonaa oo ku sii dhufanaysaa marka yar sugayna wax yar inta ku wareeganaya marka internet-kaadana ku xiran tahay marka saa arkaysaa hadda waa kana markaasna waa kana kan waa ka heli kartaa fontiska u baahan tahay dad Bobines noo ku qoran search noo saaran marka haddii aad inaad la degtana halkaas ku sii dhufanaysaa waa kaas automatic kugu degayaa oo data la degna anaga u baahnin marka font walba oo u baahan tahay style walba halkaan ka helaysaa saa arkaysidba sida hadda arkaysidba waa fontiska dhammaan kana ka wada helaysaa marka hadda Google Font ma soo aragnay website kalena ma soo aragnay marka hadda midkan kala arkayna marka d-font haddii aan soo tagno asagana d-font waa website kuwa caansan oo kamid yahay website-yada kale website kuwa caansan oo laga soo dego fontiga kamid yahay marka haddii aan isla aragno haddan oo intuu search ku maqan sugaynaa waa kana waxaa la yiraahdaa waa midka ugu horeeya mar walba midka ugu horeeya fiirinaysaa
kuwa qaarna way jiraan oo website qaar oo xayeysiin soo saaraya. Marka adiga midkaan le fiirsanaysa oo calaamada loogada saaran tahay font download font ay ku qoran tahay. Marka halkaas la raadinaysaa mar walba. Saa markaa dhan search u diray oo raadinaya. Marka waad sidaan oo soo saaro saa arkaysaan wajahdiisa koowaad waa sidaan. Marka asagana waa kana font walba oo u baahan tahay waad ka helaysaan dhammaan meeshaan search-kan ku qori kartaa font oo u baahan tahay. Marka haddii aragtan meeshaan waa ka raadsan kartaa fontii website laga soo dego kuwa ugu caansan waa saddexdan. Kuwa kalena way jiraan oo aad iyo aad u fara badan, laakiin intaan kuwaan labadan saddexdan website waa kala soo degi kartaa font walba u baahan tahay. Marka hadda midkaan hal tijaabo la degi doonaa, hal tijaabo aan arki doonaa qaabka loola dego. Markaas qaybtaan le ku dhufanaysa ku qoran tahay anka kaydhano. Marka haddii hadda meeshaan aragno qaabka loola dego, meeshaan ku qoran tahay far walba oo tagto oo qorto meeshaan qaybta horteeda hore waxaa ku qoran download. Meeshaas le ku sii dhufanaysaa download automatic wuxuu ku geynayaa aksa arkaysadba automatic hore kaaga degayaa. Saas loola degaa fontiisa dhammaan font walba u baahan tahay saas kula degi kartaa. Marka hadda haddii aan kasoo degno meeshaan oo soo galno qaybtiin folder marka soo imaano qaybta download tagno. Saa arkaysaan hadda labada font aan la soo degnay oo kuwan waa Bobiness iyo Montserrat. Marka waxaad isweydiinaysaa hadda waa la soo degay qaabka loogu shuban lahaa. Marka saa ugu shubato waxaad tegaysaa right click aad leedahay labadooda horta inaan soo doorano waaye oo horta folder geysano saas kula aragno. Meeshaan teginaa new folder lena font ku qornayna marka font markaas aan qoran oo saan dhano oo control v dhano basta ku dhano ka bacdi marka labadooda soo dooranaysaa right click aad leedahay. Right click markaas aan soo dhahdo waxaa ku dhufanaysaa extract here markaas aan dhano had saa arkaysaba waa kaasoo noo shubayo oo yes all lena. Saa arkaysaanba haddaan folderadan oo ka sameeyay oo midkan u horeyso waa Bobiness intaan ka kooban yahay oo folder intaan file ka kooban yahay. Labada fontid waa kuwa marka fontiska waa midkan calaamadan ay saaran tahay eeda oo marka intaan kalena waa reading iyo information waa fontiga. Marka anaga hadda intaan u baahannahay marka saa u shubato waxaa isticmaalaysaa right click aad leedahay. Right click markaa dhahdo meeshaan ku qoran tahay install ku dhufanaysaa. Saa arkaysaanba hadda fontii uu noogu shumaday. Saa arkaysaanba hadda fontii oo ku shumaday oo noogu shubo fontii. Marka haddii aad saddexdooda hal mar inaad ku shubto right click aad leedahay. Marka hadda midkaan hoosan Bobiness isticmaalina marka iyada inaan ku shubto haddii aragto waxaad leedahay right click install. Marka hadda Bobiness oo imaanaysaa waxaad taabanaysaa control iyo A isla wada qabanaysaa. Maxaa ka reebaysaa midkaan u horeeyo oo documentiisa ka reebaysaa kasaan dhano intaa kale oo qabanaysaa right click aad leedahay install aad leedahay dhammaan. Markaas soo arkaysaanba wuxuu ka kooban yahay 18 font ay ka kooban tahay Bobiness. Marka sidaas loogu shubtaa. Marka saa arkaysaanba qaabka loogu shubtana waa isla wada aragnay. Marka haddii WinRAR-kan haddii uu kugu jirin asna waa la soo degi kartaa oo meeshaan la tagaysaa oo browserka kugu jira tagaysaa WinRAR la qoraysa marka WinRAR aad tagaysaa oo download ku dhufanaysaa. Marka dad badan uu jiran jiro marka qaabka loola soo degan asagana waa ku qaadan doonaa cashirkan isla arki doonaa. Marka saan dhahdo oo ku dhufanaysaa marka linka u horeeyo ku sii dhufanaysaa kasaan ku dhufato xogaa sugaysaa. Markaad saa arkaysaan waa kana qaabka loola soo dego ku tusaya. Marka shan ku sii dhufanaysaa marka WinRAR waa version-ka u dambeeyay waaye. Marka asagana download aad leedahay marka asna sidaas uu kugu degayaa oo sidaas computerkaada ugu shuban kartaa. Marka hadda waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen oo qaabka loogu shubo fontiska waa isla wada aragnay. WinRAR hadduu kugu jirano qaabka loogu soo dego waa isla wada aragnaa asagana. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan oo wixii fontigan aad kala soo degi doontaan website-yadan. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan dhammaantiin. Intaan cashirkan cashir la mid ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.